tusiyaan adigoo markaas kaliya iska bixinaya transportation iska bixinaya haday noqon lahayd shippingka iyo cargo-ga labadaas lacagooda bixinaysa kaliya maxaa meesha ka baxaya cost of product iyo meesha ka baxaya cost of product iyo gadis cost is madiis kaliya waxaa dhiibe shipping fee iyo cargo adiibe cargo waa lacagta diyaaradda ku soo qaad agency-ga shipping fee waa lacagta adiga tusaalahaan markii anaga online aqoonina marka qofka alaabta ay soo delivery waxa dhahan delivery-ga alaabta oo macnaha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته guys soo dhawaad haday tahay marka ugu horeysa kanaalka YouTube ka soo booqato waxaan ku leeyahay wixii isku jeclaa ii sameey oo ku sameey like subscribe waxaan like sare video-gana share subscribe noo saar channelka aad ma santiin waaga daqiiqada ka hor waxaan TikTok soo dhigay commentayaal waa laga soo dhiibtay sidee adoo Soomaaliya joogo oo wax lacag ah jeen alaab u keenay kartaa sidee adigoo wax lacag ah dhiibin ama lacag ka bixin Chinese alaab u keenay kartaa markaan ku leeyahay alaab ka keenay kartaa waxay tahay ma aha inaad container soo rari karto ama kartoomo soo rari karto kaliya tusaalahaan waxa u baahan tahay badeecad gaar ah inay tusaalahaan aragtaa inaad markaan awoodto adiga dawladda China ka keensan ma fahmi haddii aad labiskaan ama inaad keystay dhar ama electronic wixii la mid ah ama cosmetics adiga wax kasto aad jeceshahay inaad ku ganacsato ama ku ganacsanaysid haddii aad shaqada xigtid intaadan soo galin ka hor alaabtaas aan wax badan ka keenin oo aan ku khasaarin wixii wax taylaysa kugu noqon ka hor waxaad keeni kartaa simple free meesha ka hadlaa meeshaas alaabta free oo leeyahay alaab badan ma waa simple ka free marka way loo maraa jirto in dad bixiyo ama qaab adiga Soomaaliga sidii ugu dhaadhicin dadka inay free wax free simple ay tusaan ama ay tusiyaan adigoo markaas kaliya iska bixinaya transportation iska bixinaya haday noqon lahayd shippingka iyo cargo-ga labadaas lacagooda bixinaysa kaliya maxaa meesha ka baxaya cost of product iyo meesha ka baxaya cost of product iyo gadis cost is madiis kaliya waxaa dhiibe shipping fee iyo cargo adiibe cargo waa lacagta diyaaradda ku soo qaad agency-ga shipping fee waa lacagta adiga tusaalahaan markii anaga online aqoonina marka qofka alaabta ay soo delivery waxa dhahan delivery-ga alaabta oo macnaha ka qaada shirkadda oo ku geena address-ka China u dirtay qolada ku geena marka soo dhawaada muuqaalkan like ku qabta video-gan ila daawada waa yaani qaabka simple ku raadsan lahayd ama qaabka simple-ka yaani aniga ninkan hadda isku weydiiyay marka inaan soo gato ma jecli waxyaabaha hadda ka hor keenay waxaba adii noocan product noocan kuma faa'iido marka iska taala marka waxa jiro in aad qofkaan horta marka hore waxa iska dhigi kartaa nin balay ka dhacday oo company weyn ama nin lacag haysto ma qabeen iska dhigay kadib raab saarnay Soomaaliga ay ku qarantahay qofkaan sida u dhaadhicin waxa ay u baahan tahay marka ka dhaadhicin kadib ninkaan ku ogolaanay inuu yaani wax kula sheekeeyo kula dhigay haddaba baa tahay ama aad xiisaynaysid ama jeclaaleed inaad soo dhigo koorso Alibaba iyo e-commerce oo free ah oo dhammaystiran hal video ah fadlan comment ku soo muuji waxaan soo dhigi doonaa koorso dhammaystiran YouTube oo free ah ma fahanteen hadday noqon lahayd e-commerce Alibaba 68 iyo kuwa la midka oo soft platformada oo lagu kala gato ha noqdaan loo sheego soo dhawaada marka ugu horeyso aad saan u soo furtid website-ka alibaba.com alibaba B2B waaye business to business waaye marka saan u soo furtid ugu horeyso waxa furaysaa qofka la hadlay sida message-kiisa furay kadib anaad qofka aan la hadlay message-kiisa marka saan u furay waxa waaye waxaan u jeedaa waxa ku wada sheekaysanaa ani aad u jeedaan hadda soo bandhigayo qoraaladan waxaan asiga dhamar labadaas product uu dhahay waa ku soo dhiiba midna waxa waaye noocan lacagta bixinaysa wuxuu yiri waa $2 oo kaliya anaga wax lacag hadda alaabta maahan heshiiskeena soo dhacayna waa u jeedin hadda wax walba waxa waaye waa idin soo dhigay waa u jeedin dadka dhahay been waaye ninka hadda wuxuu leeyahay $2 kaliya bixi address-kaaga iyo soo dir address-kaaga waxa u diray product sawiraan iga soo diraa dhawa ii soo diray alaabta wuxuu yiri waa 0.5 kg waa ii soo diray ayadana mideeda kale wuxuu kala wax kala aan asana dhaxmaray waxay tahay in yaani xitaa hada u baahan tahay yaani aan wada dhil karey karno yaani alaab aan ku soo dhiibi karo aad soo cadii kartid lacagtii soo xidhi kartid iyo waxyaabo la mid marka mar walba waxay ku xiran tahay khibradda adiga u leedahay barnaamijkan ama hawshan
waa saa hore ku sheegay asxaabeed waxaa linkiga payment-ga way kana arabo yani payment-ga inaan ka bixiyo hadda alaabta ma rabo inaan dalbadaani kaliya just idin kale waxay ku tahay labada doorna u jeediin oo la iska rabo labadan door waa alaabtaas labadaas shay ah marka waaba si free ah ku dalban kartaa alaabta qoraaladan waa u jeediin wax walba waa u jeediin hadda kaliya waxay dhimanaan payment sameeyo payment refund waa sameey karaa haddaad u baahan tihiin marka inaan soo dhigo barnaamij soo Alibaba qaabka yani alaab loogu dalbado oo course free ah YouTube-kayga ayaa soo dhigi doonaa fadlan subscribe ii saara idinka garab istaaga waa idin garab istaaga aad iyo aad baad mahadsantihiin halkan wax weyn ayaa ka faa'iidi doontaa subscribe iskaga qabta subscribe-ta hadda waxaan u qorayaa waa ujeediin waxaan leeyahay waa imsaxbo inta tiradooda ay tahay uu sheega kadib adiga cabaara sheekaysan niga muddo hal saac ku dhawa sheekaysanay marka way jirtaa alaab badan asaas u keenay amal oo anoo lacag dhiibina keenay lacagta kaargo kale iska dhigay lacagta kiiba fiiga aad baasantiin soo dhawaada